ila jira wayna timide weersan igu saba ha 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 weersan igu saba fikira qofka uu nolosha la wadaagi doono mustaqbalka xulashada fikirka badan oo waliba dhinacyo badan waa inuu fikirkaas isugu jiraa sidoo kale waa inuu la sameeyaa tashiyo badan kuwaasoo isaga waxtar u leh laakiin maaha arrimaha guulkiisa inuu sifooyin gaara ku xusho oo waliba dan uu ka leeyahay okay qofkan muxuu ku xulanayaa qofkan daacadnimadiisa waa inuu ku xushaa qofkan diintiisa waa inuu ku xushaa inkasta inuu Soomaali hadeen nahay dhaqamadeena dambe aynu diinteena ka tagnay marka qofkani aad xulanaysid iska hubi in badan ilaan maaha qofkani qof intuu soo galo haddana dib kaaga baxaya waa qof aad noloshaadii dhabtahayd ku aaminaysid si aadan ugu fashilmin aayaha noloshaada qofka guurdoonka ahi waa inuu ilaaliyaa marka hore waxyaabo badan oo soo dadejinaya in uu ka marin habaabo jidkii uu mari lahaa qofkii wanaagsanaa oo uu markaa ku qoondeeyo baahida naftiisa ilaan dadka qaar baa waxa hoda baahi uu naftiisa xakmeynayso ayuu wax ku doonaa dadka qaar waxay yiraahdaan jirka isku baahan weeye guurku adiga ayaa ka dhigi karaa guurkaaga in lamaanuhu ay jirkooda isku baahan yihiin iyo in aad adigu mustaqbalkaaga hiigsi ku talaabsatid ilaan qofkan ha eegin kaliya markaa baahida isku keentay adigoo dana gaar ah qofka sidoo kale qofka waxa hamigiisa mar walba oo baahidiisa ku cabira sida filmada anshaxumada sida musalaadka oo kale qofku marka uu ku xiro dareenkiisa baahida naftiisa ayaa wada marka waxyaabahaas oo dhani waa khiyaamo adigoo ku hunguri gelinayaan markaas been aad ku salaysay adiga naftaadii ilaan dadka qaar baa jiliin marka ay wax jilayaan jiliin ku kala marka si kasta ahaataba marka aayaha noloshaada qofka binaadamka isaga ayaa ka talin kara si wanaagsan wax xulan kara marka ma jeclaan horta mawduuca kan inaan ku sii dheeraado laakiin markii aan arkay qaabkii iyo habsami socodkii dhalinyada oo ay wax xulanayeen ayaa aniga damirkaygu qaadan waayay الله سبحانه وتعالى كتاب أي سورة جاي كتاب كأو سورة جاي شريعة خير وح والبوي كقريين نلاش هذا مركز سيدا وسعتد أيه اللي ما نيسا أيوة الله سبحانه وتعالى يري لكن أنا جو حد كي نلاش شيء أنت نلعفني بينه وحين الدور بدنا رقمش الشيء واللي بقى نجا الدنيا آخرة ما منا نفنا وجرين وحاسي ووحنا نجو سوق سنة ماها وح إتكلنا وجلسة أدنى السلام يا دمار أصحابتي